السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكينا عمركيو حبيب ونكسن عوض إلهي كران النخضو وحن جعل السومالوين والميل والباجوكت أخيار خاصة أخيار وحرين شنالكو عمركيو تيب وإذن سلامي وحايدنكو سلامي سلامة بقلتوني أفرتا وحان عاوان ربا إن شاء الله دو إلهي كران النخضو السومالوين ميلو ألان ميل يدافع عالم كجوغان فيديوغان inaad isi gaarsiisaan hadduu ilaahay karaala noqdo oo ii share garaysaan oo ii like garaysaan oo ii comment garaysaan mideeda kale mar walba hayga iloobin inaad subscribe igu caawisaan waxaan jeclahay markaad subscribe igu caawisaan oo like tiina share tiina commentigiina aan arko wallahi xaqiiqtan reema sheegay dhiirigelin aad iyo aad u weyn dareema aadan ugu farxaa mar walba aan idin arki inaad like iyo isiisaan aad commentiga isiisaan oo fiirshada ay siisaan oo subscribe kana ay siisaan Soomaaliyeed meel walba joogtiin waa idin jeclahay caaw insha Allah waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay karaale noqdo mowduuc ku saabsan walaalkeena qaaliga ahaa oo waayiis hore ahaa jira fanaan oo hadda laakiin u bedelmay sheekh waana walaalkeena Axmed Biif walaal horta waan ku salaamayaa ma sha Allah horta waxa waa hanuunka ilaahay iska leh anigana aad baan u jeclahay maxallaha qofkii soo hanuun oo markaas ma aragto oo ku jira munkar ama faaxisho ku jiray waxaan jeclahay qof walba markaas barnaamij ama macnaha nolol adag ku jiray ama macnaha maxalla wax uu ilaahay markaas raalkeen ku jiray ina walaalaha Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogan inaan ma aragtay aan ku xiriiriyo oo kaga sheekeeyo qiso walba markaas oo ku dhacday shakhsi Soomaali ama shakhsi walba muslim ah qaasatan caawdo ilaahay karaal noqdo waxa si gaar ah uga hadlaya walaalkeena Axmed Biif oo abel ahaa jiray fanaan oo haddana noqday maxalad ahaa nin sheekh ah oo iskaga baxay fanka kulli ma sha Allah horta aad aan ku taageersanahay walaalkayga abelna kugu ma jeclaan inaad fanaanimada aad ku sii jirto haddana maadaama aad noqotay qof maanta anaga wax noo sheegay oo maanta na wacyi gelinaya ama maanta ma aragtay diinteena soo baneed wanaageeda nooga sheekeena wallahi xaqiiqatan lama maleysan karo farxadda markaas na galayso kulli Soomaaliyeed haddaan nahay aad aan u jecelnahay maxalla diinteena soo ban way diinteena waa shay aad iyo aad nolosheena ugu qaali ah qofkii maanta hal ina noo sheegan kulli waxaan aaminsanahay inuu meel inuu noogu yaalo qalbigeena waxaan aaminsanahay qofkaas ma aragtay wanaaga noo sheegay inaan mar walba xusno waxaan jecelnahay qofka wanaaga noo sheegay inaan mar walba ma aragtay aan qiimeena aan tixgelino waxaan jecelahay mar walba ma aragtay qofka walaalkeena oo markaas wanaag ama macnaha wax wanaagsan ama ficil qurux badan sameeyo waxaan jecelahay Soomaaliyeed meel walba joogtay inaan ma aragtay hadduu ilaahay karaale noqdo aan ma aragtay la share gareeyo qof walba Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogan aan jeclahay inaan gaarsiyo ma sha Allah horta walaalkeena aad iyo aad aan ku salaameena aad iyo aad aan ku jecelnahay kulli fanaanimada horta mid aad ugu baxda waa mid markaas adiga horta ilaahay kugu hanuuniyay oo ilaahayna garab kugu siiyay oo ilaahay kula jeclaaday wadadaad ku socotid inay tahay wada mugdi wadada ku anfacaysa maanta dhex taagan tahay kulli wadada ku anfacaysa inay tahay aniga dhan waa ognahay aadaan markaas aan kugu jecelnahay wadada hadda aad ku sugan tahay wallahi waagaad fanaanimada ahayd waxaan aaminsanahay hadee 100 kun ku taageeraysa maanta 1 milyan ka badan ku taageersan oo maxal ah diinta islaam dartees kugu jecel oo kugu jecel wanaaga hadda aad qaatay darteed kugu jecel oo sharafta hadda aad ku dhex jirtid maanta waxa wallahi waxaan aaminsanahay meel hadda marayso dadka aad ay ku qiimeeyaan aad ay ku tixgelinaan sababtoo ahna ma ahan inaad sharifnaan ahayd ee waxay tahay maanta wanaaga aad ku jirtid oona ugu wacyi gelinaysa walaalaha kala Soomaaliyeed oo hadda fanaanimada jecel qaarkood hadda ma aragtay inay sii bartaan jecel qaarkood hadda meel dhex sii marayaan qaarkoodna ebel hortaada ku sii jireen qaarkood hadda gadaashaada soo gal oo hami ka siilay inay sii gaarsiyaan kulli waxaan aaminsanahay inay kugu dayan doonaan si adaraad maxallaha aan ka hadlay walaalkeena maxallaha FJ Xabiib oo kaleeto waa kana maanta kugu dayaday waa walaal maanta ma sha Allah maanta wadadaad qabatay mideeda kala qaatay waa walaal ma sha Allah maanta ma aragtay wanaaga adiga aad jeclaatay oo ilaahayna asigana tusay oo asigana ma aragtay oo ku hoggaansamay ma sha Allah wallahi horta aadan kugu taagan walaalkeena Axmed Biif aadan ku jecelnahay waqti walbaan ku jecelnahay waxaan kugu jecelnahay wax kala maahan waa kalimada la ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam sababtoo ah waxay tahay qofka walaalkaaga muslimka ah hadduu shalay meel cidlo ku socday oo maanta ka soo noqday ha u xanaaqin aadihin macnaha qofkan iyo shalay macnaha fanaanimadu ku qurux badan waa ogaay Soomaali badan way dhigi karaan way dhahayaan macnaha codkiisa aad u macaan badan wallahi waa hadduu fanaanimo ku sii jirnaa waxaan umaleynaa inuu maarta ahaan lahaa nin maanta ma sha Allah Soomaali laakiinse maanta ma noqonin ilaahay maanta ku jeclaaday oo ilaahay baa wanaaga kula jeclaaday ilaahay baa farxad kula jeclaaday ilaahay baa khayrka kula doonay ilaahay baa marka wadada حق أقول هذا ما أنت إله كجوجي إله نحن كذا بري أنا ودنا كل ما تو إله نحن كذا بري أنا ما عرفت أديكو ودنا كرتاجن
oo wadadan abu maxal laha ku sii dadaalayso maaragtay hamigeeda aad leedahay inaad ka gaarto sida culimada Soomaaliyeed iyo culimada caalamka oo kale sida ay noqdeen inaad sii noqoto oo hamigaaga oo noqdo qof maanta ma aragtay diinta islaamka shacabka walaalihiisa ugu sheekeeyo oo walaalihiisa ma aragtay mar walba wanaaga oo la jeclaado oo mar walba ma aragtay xumaanta ma aragtay ka reebo oo mar walba ma aragtay wax walba ayaga farxadooda ah wallahi billahi ma aragtay oo la qaybsado aniga kulli aad iyo aad ayaan ku jeclahay horto aad iyo aad noo ku taageeraa waxaan kugu taageeraa ma fanaanimada shalay ahayd laakiin waxaan kugu taageeraa wadada maanta aad taagan tahay sababtoo wadada maanta aad taagan tahay waa wada in lagu dayado weli Soomaali guud meel walba daafac caalamka jirta inay kugu dayado ay mudan tahay waay sababtoo ah wax khayraad ummadda u sheegtaa sababtoo ah wax khayraad ummadda la wadaagtaa sababtoo ah waxaad shalay aad ummadda waxa qiijisaa qof shalay hami lahaa laga yaab inuu maanta adiga markuu ku arko oo sida dartaada kaga soo noqdo oo dhaw macnaha maxaa la ninkaas horteena ku jiray fanka haddana asbaabta ugu baxay maxay tahay waxaad uga baxday wax kale ma ahan ee waa wanaaga adiga mar walba aad samayso waxaad mar walba aad ma aragtay aad jeceshahay oo ilaahay kula jeclaado baa jiro ilaahayna xaqu kula jeclaaday ilaahayna diintii shalay hooyada iyo aabahaaga ee isku guursadeen ee kugu dhaleen oo maanta ilaahay kugu soo celiyay maanta diintii islaamka oo xaqeeda ku dhex jirta maanta diinteeni suubanado ilaahay kugu soo celiyay sababtoo ah waad aragtay fanaanimo kulli lagaaga sheekeenayo macnaha ee leedahay mas waxyaabaha qiimaha ee la helay ku fadhiso wax qiimo ee leedahay malaha fanka wax faa'iido oo ku fadhi hab yaraatay malaha wallahi waxaan aaminsanahay kuwa maanta ku dhex jira iyo kuwa hamiga kala hayo wallahi wada cidla inay dhex taagan yihiin mas wada mugdi inay ku dhex socdaan sababtoo ah wadada aad mar walba qiimeynaysaa waxay tahay midda ka dambaysa qiimeyn midda ka horeyso sababtoo ah midda ka dambaysa waa midda asalka aad leedahay sababtoo horiya waxaa loo dhahay kullu shay'in yarji'u ila asli wax walba booskooda ay ku laabanayaan adigana maanta waxaad ku laabatay wadadaadii xaqa ahayd wadadii shalay ilaahay adduunka kugu keystay oo la rabay inaad qaadaad maanta ku dhex jirtaa wadadaasna waxa waa shakhsi walba maanta adduunkan korkiisa ku nool ha ahaada gaal mas ha ahaada muslim waxa waajib ah inuu ku dhinto kelimada la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah adigana maanta ilaahay tiiba kugu soo celiyay waxaan maqlay ama social media ka arkay adigoo marka hadlayo oo noqotay macallin dugsi wallahi horta aadan u jeclaaday sababtoo maanta ardayda aad wax baraysid waa ardayda mustaqbalka ardayda maanta aad rabto inaad ma aragtay diinta wax ka fahamsiiso waa ardayda nolosha ardayda maanta aad macnaha hami aad ka leedahay inaad mustaqbalkooda dhis waa ardayda maanta adduunkii jiilka aniga naga dambeeyo oo maanta wadanka wax ka sii qaban lahaa wallahi waxaan aaminsanahay maanta hal eri aad u sheegto hadduu hal qof ku camal falo waa mid adiga akoontiga aakhira kugu jirto sababtoo adduunka wax yaala ma lahan adduunku waxa waaye wuxuu yahay hab yaraatee ma lahan adduunka qiimihiisa wuxuu yahay hab yaraatee ma lahan wallahi maanta haddaan ku noolaan xataa inta sano aniga aan jecelnaha ama hantidaarno haddaan nolol siiyo mase nolol alla noloshaarno aan nolol siiyo wax aynu faa'iideynaysa ma lahan sababtoo ah asalkeena meesha ka imaan aan u laabanayna sababtoo waxa mar walba ku wanaagsanaa waxay tahay hadaa 100 sano noolaato meelaad weligaa ka soo noqon inaad aadaysaa haddii rabto intaasoo 100 sano milyaneed sano ha noqoto marka waxaa muhiim ah wadada maanta aad qabatay waa wada maanta Soomaali guud meel qof walba anfacayso waxay si anfacaysaa qaasatan dadka fanka hadda jecel oo kale hadda inay bartaan ama hami u sii leh oo kale waxay si anfacaysaa dadka maanta noloshooda macnaha ma aragti ku dadaalay ama dhahayno fanka macnaha heer sare ka gaar wallahi Ahmed waxa ma sha Allah walaalkii in lagu daydaa tahay in lagu dayado mudana tahay xaqiiqo markaan ka hadlo walaalkii Ahmed wartu wallahi aadan ku jecelna aadan ku salaamayna mar walba waxaan jeclahay ma aragtay ma ahan shakhsi walbo markaas ahaan jira ama macnaha hamiga fanka lahaa ama hami fan ku jirjir sida adigoo kale iyo Ahmed maxaa la dhahaa FJ oo kaleeto dad badan oo horteena jiray maxaa la qaarkood way dhintay ilaa una xariisto oo markaas ka tanaasulay adiga hadda maanta ma sha Allah sida FJ oo kaleeto ma sha Allah run ahaanti waxaan aaminsanahay maanta wadada aad taagantahay waa wadada in lagu dayado ee mudan tahay waa wada maanta ma aragtay jiilka hadda soo baxay xataa hadduu kugu arko oo kugu farxayo sababtoo ah fanaanin waxay taraysa malahan waxaan maleynayaa hadda fiidiyoyaashaada oo waayga hore aad qaadi jirtay inay ku jiraan waxa la barta social media laakiin waxaan jeclaan lahaa qof walbo markaas ma aragtay oo inuu ninkan walaalkeen isaga baxay fanka inuu ka dhaleed gareeyo qofkii markaas memory ugu jiro inuu iskaga dhaleed gareeyo qofkii markaa ma aragtay ku arka xataa barta social media hadduu awood u leeyahay inuu ka dhaleed gareeyo wallahi waxaan jeclaan lahaa inuu ka dhaleed gareeyo sababtoo oo ninkan walaalkeen ilaahay baa soo hanuuniyay ma fiicno maanta hadduu shalay wada khaldan ku socday inay maanta ma aragtay wadadiis khaldan macnaha maxaa loogu galay in la dhaho ma fiicno waad aragtaa dadka badigooda qof macnaha fanaan ahaa jiro maanta wuxuu ku sugan yahay asigoo inuu ka soo noqon loo soo dhintay ayaa badi khaasatan dadka Soomaaliyeed haddana aan dhageysanaa taasna ma anfacayso sababtoo qofkaas waqti xaalka wuxuu ku sugan yahay ilaahay baa og wallahi wuxuu ku sugan ilaahay baa og ilaahayna wuu noo sheegay maxaa la dhahaa diinteena way noo sheegtay ilaahayna wuu noo sheegay inaysan macnaha waxaad samaysato ee mar walba ka dambeeyaan laakiin waxa qaba ilaahay ummadii ma aragtay oo dambi ka gashay inuu ilaahay ka cafiyo ilaahay ummad walbo ma aragtay markaas ma aragtay ay khalad ka galeen ama gaf ka galeen inuu ilaahay ka cafiyaan ka baryana
إلهي وحواي ما أرتي أسيا حي دل حي سنوليه إلهي أسيا غفور رحيم أسيا شديد العقاب إلهي أودي ساوين والله بلا وحا أمي سنة ما أنت أود أنا أسكو فاني أنا مثلا شيغان إنه إنيس وحبا أهين ما أنت وح أدونك بدل كرن حبيرات ملها وح والبون وح كل عن وإلهي درتي زكون فيكون يكون عن أنا وحن أود أن لنا ما أنت أن خبكر مثلا سميكرنا ملها وح والبو إلهي إنه رال نو نخدم كسميكرنا وحو إلهي رال نو نخدم حبيرات ما سميكرنو أنا هاد واد أرتي أدونك هاد وحا لغو دحجرا وعذر هلسا dadka waxay aaminsan in ayaga macnaha maxalada awood ay u leeyihiin inay joojiyaan sida dadka wadamada horumaray oo kaleeto laakiin inaysan joojin karin oo ilaahay bas joojin kara aniga aaminsanahay hadana dadka muslimka ah sababtoo ah ilaahay wuxuu asiga awoodo un baa dhaco wuxuu asiga sameeyay un baa dhaco anaga waxba aan wax ka bedeli karno malahan wax amaad wax ku kordhin aan ku kordhin karno malahan marka waxa fiican ninkan walaalkeena oo maanta isaga baxay wadadii shalay marayay oo maanta wada ka qeyr badan qaatay qofkii muusigiisa ama heesiisa hay inuu iska dhaleed gareeyo asigoo ilaahay dartiis u dhaleed gareenayo sababtoo ah walaalkaaga hadduu shalay meel xun ku socdo maanta ka soo noqday ha u qiimeeynin sababtoo ah waxa mar walba la qiimeeyaa nolosha wanaagsan oo maanta ku jiro ha u celin noloshiisa inay noqoto mid macnaha maxaladaha oo ma aragtay adiga markaas ku raaxaysato راحة معهن سببتو waxay tahay qofka heesaa dhageysto maxaa la dhahaa silsilad naagara dhagaha laga gelina waad ogtiin waad Soomaali diinta aad u maqashaan aad u barataan marka waxay idin dhiilaa mar walba walaalahayga Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogtiin ninkan walaalkeena ah FJ Xabiib ma aragtay ninkii muusigooda ahaa inuu iska dhaleed gareeyo FJ Xabiib dad uu kaanda wuxuu yiri walaalihii waxaan ka codsanayaa muusigii iyo macnaha qof walba ahaa inuu iska dhaleed gareeyo dhahay maxaa la social media meel walba kaga jiro qofkii awood inuu ka dhaleed gareey karaa haddii awood u leeyahay ka dhaleed gareey sababtoo qofka walaalkaaga hadduu mar wax codsado waxa muhiim ah in codsigiisa fulisid sababtoo ah ma loo reebo mase wuxuu ku jiri jiray macnaha maanta dhagaaga raaxaha u gelin sababtoo ah dhibaatada ay leedahay waad la socotaa xumaanta ay leedahay waa la socotaa marka walaalkayga Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa hadduu videogan ku soo gaar meel walba daafaca caalamka joogta Soomaaliyeed meel walba joogta inaad ka gaarsiisaan qaasatan waxaan jeclahay maxaa la Soomaaliyeed adduunka oo dhan meel ay joogto inaad gaarsiisaan walaalahayga Soomaaliyeed mar walba video aan soo sameeyo waxaan jeclahay inaad gaarsiisaan mar walba video aan soo sameeyo anigu uma soo sameeyo macna dare waxaan u soo sameeyaa waxay tahay inaan macnaha dadka ku guwaabiyo qof walba wuxuu soo maray qof walba macnaha wuxuu wanaag qabtay qof walba wuxuu soo qofkii maanta xumaan horta soo mar ku dhintan ilaahay ka baryana inuu ilaahay ka cafiyo sababtoo ah qofkan waa adoon ilaahay maanta cadaabkiis ma awoodo inuu maanta xijiyo wallahi bila dhimbil dab hadasaan u qabatay xataa awood ku celisan lahayn macada la awood maxal laha ilaahay cadaabkiis wallahi waxaan aaminsana inaadan waxba ma aragtay aad u qaban karin oo sila irfaad ee marka qof walba oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa video hadduu ku soo gaar fadda inaad share gareysaa mar walba idin ka codsada waxaan dareemaa waxaan isleeyahay maartay inay ugu dhibsateen waa maleenayaa mar walba video in soo gaar walaalahay waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan asxaabta ku xiran channelka Cumar K YouTube waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh